فالحديث كانوا فيرسو وحنا بقول إنك مركو سوق قاليو يراهضه حديث ابن ماجه الباني حسن الشيخي إنك مركو سوق قاليو يراهضه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير انت ويردان كيدا هذا مركو السوق قليو كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف سيئة وبنى له بيتا في الجنة كن ويمسه ومليون دي في عربي يهرب مليون وحلا يداكم مجرين ألف ويان كن لغو دفتay dawa 1 milyan waa 6 صحيح كما wuxuu nabigu leeyahay ninka markuu suuqa galayo maalintii tijaarada uu ku sii socdo intan akhriya 1 milyan oo ajara waa loo qorayaa 1 milyan oo sayi'ana waa laga rogayaa gurina jannada looga dhisayaa culimadu waxay yiraahdaan mawtikan baa mawtin al-ghafla oo inta badan dadku lacagta iyo dukaanka iyo xisaabada iyo rasaqiya fataxday xasuustaane dhikriga ما حسوستان بيدادان يعني هو موضع عام وقفوا انت بدن وحيدادان عباداتكم اماكن الغفله هي اوقات الغفله هي كواسي عباداتكم اجركود وحوغ اسمه وايو قفكنا waxay tilmaamaysaa qof ilaahay ku xidhan subhanahu wa ta'ala inuu marka qofka markuu suuqa galay sida tan yiraahdaa milyan xasanadood na waa loo qorayaa milyan sayaana waa laga rogayaa guri janneedna waa loo dhisayaa buu nabigu tilmaamay alayhi salatu wasalaam